بسم الله والصلاة والسلام على رسول الله صلى الله عليه وسلم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. أصحابتي القالقة ميل كستا جوجتين كسو دوادا جنال كيني حرونتا عنtada caafimaadka oo walaashin shukri aadan buule walaalaal macaan maanta waxaan wadaa topic kale oo aad iyo aad u ah important ah ilmaha dhinacooda ah oo su'aalo badan laga soo weydiiyay markaas waxaan jeclaystay aniga inay niidso iyadoo practical dadka ku fahmi karaan hooyooyin badan wax badan isoo weydiiyeen kusoo dhawaada iyadoo muuqaal ah waxaan rabaa inaan ka hadlo colic gas wax la dhaho colic gas waxa weeye af Soomaali ahaan waxa weeye marka ilmaha yariiska la dhalo gas ku dhaca caloosha uga dhaca markuu dhasho uu yahay 0 ilaa markuu gaaro 4 bilood ayuu ka baxaa haddaan isweydiino marka waa maxay colic gas ilaa hadda markii dhaqaatiirtu dhan research adduunka la sameeyay wax cadeen waa loo waayay but waxay dhahan sababo loo maleenay inay keenan ayaa laga yaabaa inuu ku dhaco cunugaas waan ka hadli doonaa waa maxay sababahan waxa keeni kara dhaxayaan ilmaha yar markuu gaaskaas uu ku dhici karaa hooyadiis hadee tahay qof markii uurka lahaan jirtay maandooriyada qaataan ama sigaarka ama dadka jaadka cunaan way ku dhacaan ayay dhahaan laakiin looma hayo proof la dhawgaada la socdaa wax cadeen looma hayo batay ku dhacayaan dhaxal ilmahaas oo kale hadii hooyada uurka leh ee ahayn hooyo cuntooyinkii dietkii fiicnaa ee sida caafimaadka lagu talagalay cuni jirinna way ku dhacdaa ayay dhahaan hadii hooyada markii ilmaha nuujinaysa ee ahayn hooyo diet fiican cuntadii lagu talagalay iyadana way ku dhacdaa waxa kale oo keeni kara dhahaan immature digestive system waxa way immature digestive system waxa way ilmaha yar caloosha oo meesha oo qaada ama jajibiso metabolismka dhinaca cuntada oo hadhow saxarada noqonaysay ayaa wali korin oo weynaanin that's why marka ugu dhici karta ku dhacda ilmaha qaarkood waxay dhahaan ilmaha markuu yahay from 0 ilaa 4 bilood waa markii ugu badan tahay ilmaha koritaankiisa every 2 saacadood ama saacad caana la siinaa naasa la siinaa markaas calooshiis ilmihii way yar tahay wali mature noqonin soo cuntooyinkaas ku dhacayo ma xamili karto dhaqsana hore process ma sameyn karto ama ma jajabin karto that's why gas hawada ku dhacayso gaas u noqonaya ay dhahaan maxay kale dhahaan ilmaha markuu ooyin badan yahay ama sensitive yahay isagana waa keeni kartaa but waxa soo dhan waxa weeye wax loo haynin cadeen waa just maleen ee dhahaan proof ilaa hadda ma hayno maxaa marka keena kale ee ku arki kartaa asmaan calaamadaha ayaa ku ogaan kartaa ilmaha inuu leeyahay colic gas waxa ku ogaan kartaa hadii cunug ooyin badan uu yahay oo saacado iyo kor ooyintiis u dhaafo cunugaas colic gas uu leeyahay lagu dhaxayaa ilmaha markii ooyaan wajiga gaduuta suu ooyinayo markuu ooyinayna la dhahenin ilma gaajo hayso ma aha waa ka soo baxday aramihii kale dhan oo ilmaha guud ahaan bambaskiisa uu qalalan yahay waa caana siisay waa culmo waxba kala rabin ilmahaas gas colic gas uu raba ayuu leeyahay la dhaxayaa ilmaha yaryar ma aragteen oo markay dhashaan calooshooda ka yeera lugaha kor inta u soo qaadaan halkan keenayo xanuun majiir dhan caloosha waxa ka dhex maqlaysaa guux cunugaasna colic gas ayuu leeyahay la soco hadda calaamadaha ayaan ka hadlaynaa ilmahaas ku ogaan leeyahay inuu leeyahay mar kale waxa ku ogaanaysaa ayaa la dhahaa hadii ilmaha yariiska uu waxa la dhahayaa ilmaha habeenkii saxan marka aragtis ooyinayo ilmahaasna colic gas ayay leeyihiin aniga xitaa way soo qabsatay waana markii dambe waa ogaaday marka sidee cunugaaga ku uga bixi kartaa asmaamihii uga bixi lahayd ayaan rabaa hadda inaan baro ta ugu horeysa iska ilaali cunuga marka caana siisid oo darjisid inta soo qaadid saas sirta u saartid ka tagtid madax iska ilaali aan dhihi lahaa ilmaha marka siisid caanaha dhaqso madaxa u seexinin ilmahaaga soo qaado nuunihii waa kun Soomaaliya soo qaado halkan saaro halkan marka saaraysid ilaa 30 daqiiqo ama 20 daqiiqo ama 10 daqiiqo ugu yarta dhaxta la dhahayo meel ayaa u daahsan tahay halkan marka saartid marka sugtid waxa sameynaysaa waa massage gareyn dhabarkiisa ayaa soo dhaysaa ilaa intuu ka daacsanayo waxa maqli doontaa daac badan
ilmahaas gaaskii ayaa ka waxisay laakiin haddii dhahdo naaskaasi waan tuuraya gaas ayaa cunugaas ku dhacayo uuna dhigi doonaa habeenkii ma seexan doono waxyaalo badan asan laakiin marka cunugii la dhahaba naaskii soo siisay halkan soo saartay halkan saare si fiican u fiiriya waa kaas madaxii cunugii halkaas waaye cunugiina saas waaye ilaa 10 daqiiqo cunugiina dhabarka masaaj gareysay cunugaas uu ka badbaadi doonaa insha Allah waxa kale oo ka bixiya ilmaha colic as waxa waaye biyo kulul biyo qandac ugu qubeeya una masaaj garay si ugu masaaj garayna hadda ka horna videogeena uga soo hadalnay ilmihii waa kan waa soo qubeysay biyo oo qandac ugu soo qubeysay halkan meeshan ma jeedaa waa meesha ilmaha gaaska uga dhaco soo maxaa sameynaysaa saan waay samaaha saasa dhehaysaa tartiib afarta gacmood saddexdaas gacmood tartiib tadii kale siheen samaaha saas dhehaysaa masaajinkaas oo biyaha kulul iyadana ilmaha way ka kor qaadaa waxa kale oo kala siin kartaa infacol waxa weeye waa sharoobo dhibic 3 waqtiya la siiyaa dadka Kenya joogan la hadlayo dad kalena daawooyinka la jiro ee ku weydiin doonaan dhaqaatiirtooda infacol iyadana u fiican tahay iyadana si 3 waqtiyaan dhihi lahaa waxa kale oo caawiyo ilmaha oo la dhahayo gaas ay caloosh ku leeyihiin lugahooda ayaa baasay waxa kale oo sameyn kartaa ilmaha waxa la dhahaa noonihii waa kana dhehaysaa for example insa babygi waa kan san samaha lugihiisa qabanay tartiib saasa dhehaysaa sidii baskiil camal saasa dhehe saas adi la 10 minute ilaa 5 daqiiqo iyadana wuxuu ka dajinayaa xanuunka calooshka haayo waxaan u fiirsaday waxa kale oo keena cunuga yariiska ina sidii loogu talagalay positionka loogu talagalay in hooyada naaska u siiso hadaa ka seenin marka dhashid weydii kuwa naaska meesha jooga ama nutritionist waxa ku dhahdaa waxaan rabaa in la baro sida naaska caruurta loo siiyo sida loogu talagalay hadaa u siisid cunuga oo soo qaadisid maxaa la barkina inta saartid cunugaaga madaxiisa hoos ahaanin lugihiisa macluush kor ahaanin iska ilaali cunuga madaxiisa kor inuu hadaal rabaa calooshiisa hoos ahaat marka naaska siinsid soo dad caanihiisa ee hoos ugu dhacaan laakiin hadii cunugii uu kale hoos yahay caanihi gaas ay ku noqonayaan isagana hadhow kolikaas ku dhacay la soco barta sida gaas ilmaha caanaha noo siiyo iyadoo xumaan ahayn waa wax la bartaa marka dhakhtarka ku jirtid oo dhashid waa rights leedahay xuquuq leedahay ina weydiisid dhahdid aniga ma aqaan hada hooyo cusub tahay ibar hada xitaa ka hooyo kale ilmo kale soo dhashay dib mala stiil waa baran kartaa wax weyn ma aha walaalayaal macaan ilmaha positionka saxda ah iyadana cunuga naaska haloo sii ayaan dhihi lahaa waxa kale oo xanuunka ka dajiyo cunuga yariiska la dhahaa marka oo gaaskaas ku dhaco babygi waa kan soo qaad Soomaha subaxdii marka meel ka dhawdahay not habeenkii anigu la talinaya subaxdii waxa u seexisa cunugaada for example waa kan Soomaha halkaas ahaado meel ka neefsan karo xabad u seexi xabadkaas ilmahaas u seexinaysid gaaskii uu ka baabaa naturally subax kasta laakiin uu seexsala not in ugu markaas uu seexid ina ka baxdo no cunugaas waa ina ka agdhawaatid because ilmahaas wali uu yar yahay mana hadli karo waxa laga yaabaa sankiisi inuu hadhow ku dhaco marada ay qabsado uu soo dhinto so maamooyinka waxay dhahayaa hooyinka Soomaalida ka taxadara taas ahaado cunuga agtaada meel aad joogtid dhig aad ka fiirinaysid hada xitaa shaqaysanaysid ama aad jiiftid xitaa sankiisana meel ku neefsan karaa saas u jiifi maalin kasta 30 daqiiqo subax morning xitaa laga yaabo subaxyaasho dhan ina madax u seexinin oo saas u seexisid xabad isagana gaaska ayuu ka baabiyaa markaas ayaa uga baxaya walaalayaal macaan inagoo mahadsan sheegareeyo hooyooyin kale si ay uga faa'iideystaan wassalaamu calaykum waraxmatullaahi wabarakaatuh